هلا صومالي ومد النبي محمد سلام عليكم حري محمد قوحي حري دقيقة قوحي حري والله صومالي وحوي waxaan baalka ka hadlayay wuxuu raamar baa dhimatay warqada safaarada Soomaaliya u sameeyay war haba dhimatay buu ka hadlayay dadkii citizenka ah disable ka ah hooyaday baa dhiman rabtaa oo hadda kansaradii cudurada aad sheegayso dhan baa ku dhacay ana cusbitaal tagta loo diiday wax qaad anagana naloo diiday walaalkay hooyaday hadda waa daawooyin baa dhacay baa la siiyay waxa la in la dilo walaalkay sidoo kale reerkayagii sidoo kale walaashay oo dawmashay sidoo kale dadkii citizenka qaxootiga ahaaba Soomaali tuuga ah oo la soo dirtayo meelay u shaqeysa iyo meelay ka socotay aan la garanaynin baada waxay la shaqeystaan human service oo inay dadka ay laayaan oo dadka cusbitaal la geeynin bay rabaan oo meel kale lacagaha ay mariyaan lacagaha dadka Soomaalida lagu daweyn lahaa ee citizenka adiguna waxaad ka hadlaysaa dadda waxay ka hadlayaan dad aan sharci lahayn wadadkii sharciga lahaay qaxootiga ah anaga ahay dadka yagi anaga naloo diiday anagana cudurada sheegaysa anaga baa dadka ugu dhacayaan ba ka baqayna ninka hadda waxaan sheegayaa ka sheekeynaayo YouTube ta ka arkay cudurada uu sheegaya ninkaan waa nin hurda waxa weeye Soomaalidu miyay ku daynaysaa Soomaali inay ka faa'iideysato dadka la shaqeysato bay doonaysaa meel walba dadkii citizenka ahaa ee qaxootiga wadanka Mareykanka ku yimid baa sidaas ku dhacaysa oo nagu dhacaysa oo iyada bay ku dhacaysa ku socota oo walaalkii baa ku socda oo hadda sakaraad oo cudurada kansarka waxayna ku dhaceen laga yaaba oo qalalay oo hadda meel dhaweyn intay jirkiisa wuxuu noqday gabe waxaasoo dhan iyagu baa human service ka iyo la shaqeysta oo lacagta inoo haya iyo waxa ay yiraahdo si kale wax ugu baxaan meel kale hadda si kale wax loo bedelaayo hadda waxa weeye 10 qof hadii ay 5 haday Soomaali qaxooti tahay 5ta Soomaalida refugee oo citizenka ah la caawin maayo 5 kale lagu bedelayaa ama lacagta baa meel kale lagu shubanaya hadii la doono Soomaali baana waxa bartay Mareykanka dadka human service u shaqeeya ayagana kamid ah ayaga baray waxaas oo dhan aduguna waxaad sheegaysaa ninka ka hadlaya sheegaya qof baa Soomaaliya baa warqad nin Soomaaliya saxeexaya muxuu ugu saxeexaya ninka Soomaaliga warqad nin Soomaali haduu wax ku saxeexaya ama uu ku rabo ama Soomaali doonaya nin leader Soomaali ah miya Soomaaliya saa u burburi lahayd ma 40 sanadood bay Soomaaliya ay ahaan lahayd wadan oo maxay raado foora ah oo military foora ahaan lahayd ma 40 sano ayay ahaan lahayd wadan foora oo discrimination يعني discrimination waxa la yiraahdaa kelmad discrimination baa la discrimination waxa wax fracture ah la gubay ama dhuarta dhirta la gubay ama wax noocaas ah oo adigu biological science ka baxa weeye masaasa lagu wadi lahaa maxaa adigu u maleynaysaa inay dadkaan ay qayb ka yihiin waxa dhacayo oo dhan habar baa laga soo bilaabayaa caruur baa lagu xajinayaa waxa la baabinayo habarta iyo caruurta Soomaha iyo wixii la mid ah waxayse kula tahay adiga habar Mareykanka joogto oo la soo qaaday oo inay wadanka nabadgelyo iyo caafimaad ka hesho iyadaba hadii loo diidan yahay oo in dhaxta oo iyada la yiraahdo adigoo disable oo weyn oo waayeel ah wiilkaaga disable aad mas'uul ka tahay korkana looga ilaashanayo sidaan ku dhaana anaga si aan hayna yeelin oo la waalahayo oo qofkii dhalay loo diidayo qofkii wax fahmaya qofkeedu wax fahmayana laga qaatay oo laga xoogay maxay adiga kula tahay taas maxay kula tahay gabadh inta nin yiri waa ku guursaday ilmihii iyo caruurtii ka xoogahay awood u sheegtay oo aan laga hadlaynin oo indhaha la isqabanayo oo nin kale luqunta loo galiyay asagana uu dilahayo oo meel ku xareysanay maalin dhexdaas waxaan arkay ninkaas isagoo Facebook soo galiyay gabadha ayadoo cusbitaalka ilmihii ugu geeyo sariirta ilmaheeda la fadhiyaan uu cusbitaalka soo galiyay YouTube soo galiyay Facebook soo galiyay ninka noocaas dadka noocaas ayaa anaga hayno oo walaashi aan sanad arag oo hooyaday hadda la tala iyo advice lagu siiyay maxaa raadayay waxaan la garanaynin marka dadkaas ma kula tahay inay ku caawinayaan dad maxay raadayay kale dadkan dad uma naxayaan dadkan day Soomaali u naxayaan aan la hadlaysaa dadka soo dirtay iyo dadka aad la hadlaysa ninkaas aan sheegahayaan Soomaali uma naxayaan dad iyo muraadna kama leh hadalkaagu baad iska qasaaraynaysaa adiguna naftaada halis baa gelinaysaa
waayo dadka aad hadlaysaa dadka adigoo keligaa waxba kama qaban kartid dadka aad la hadlaysaa waa dad awood weyn oo shisheeye gacantaysa ayay shisheeya la shaqaysta wey waa awood weyn oo aan la talin oo aniga hadda qofkay doonaan ba iska soo weerarhayo oo da ilaahay baa naga haya wey dadka aad la hadlaysaa dadka aad la hadlaysaa dad maaragtay adduunka ku filqsan weeye jaynaha la shaqaysta jubaanka la shaqaysta waxaan sheegahayaa dadka magacaa leh ayaan sheegahayaa dadka HH-ka iyo wixii iyo halmaala magacaa wata garatay hadda waxa way Soomaali Maxamed oo dhan baa kamid ah qayb ka ah inay dadka Soomaaliyeed iibsadaan meel walba ku iibsadaan bay ugu talagaleen wax ka qabanayaan male dawlad noo kacaysa male oo xitaa naga celinaysa oo ninka waxa walaalkii baabiinayo inaad arkii baabiinayo oo ninka dhiigiisa lahaa baabiinayo dilahayo yaa wuxuu qabanaya yaa wuxuu qabanaya yaa dhug oo haddana dhug oo haddana dhug yaa wuxuu qabanaya yaa u qabanayo yaa bullying yaa wuxuu qabanaya aad iska hadlaysaa hadda marka ugu horeysa soo sax in adeerkaa soo sax in adeerkii soo sax yaa saaxiibo wada waxa weeye waa sheekadu waa caynkaa wey